dowdal kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena arrimaha siyaasadda garqaad media waana qaybtii labaad ee barnaamijkeena maanta qodobada aanu kusoo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona ehelada wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ka hadlay baxsashada wasiirka iyo weliba wararka kala duwan ee ka soo baxay labadii maalin ee la soo dhaafay. dhanka kalena madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxa ka hadlay munaasabad soo dhaweyn oo lagu sameeyay magaalada Nairobi. madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isagana ka hadlay baxsashada wasiir Janan isagoo sheegay in looga baahan yahay dowladda jawaab degdeg ah iyo weliba cadeymo. qaar ka mid ah sida wararkan ku helina kaamirooyinka ku xiran gudaha magaalada Muqdisho jidadkeeda ayaa laga saaray sida la sheegay sabab aan ilaa hadda la shaacinin. dhanka kalena diyaaradda Bonk ayaa waxa ay la kulantay khasaarihii ugu weyn abis sanad kadib markii ay sanadkii la soo dhaafay shirkadaasi diyaaradda ay soo saartay ka mid tahay diyaaradii ugu dambeeyay ee 787 Max ay burbureen iyo duulimaadyadii lagu tegay gobolka Gado oo gabi ahaan baa la hakiyay iyo Ilhaan Cumar oo weerar ku qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. qodobadaas weliba qodobo kale ayaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa qaybta labaad. fadlan daawada haddaad ka mid tahay saaxiibada nagu cusub halkan wararkii weliba warbixinadii ugu dambeeyey ee Soomaaliya caalamka anakoo maalin kasta barnaamijyo qaranqeen iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya sameyn aanu ku bilownay faahfaahinta wararkaasi tan iyo markii ay soo baxday warka ay baahiyeen booliiska Soomaaliyeed oo sheegay inuu baxsaday halkii uu ku xirnaa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa walaac muujiyay qaar ka mid ah helada wasiirka. nabadoon aadan maxamed gurumo oo ah nabadoonka wasiirka ayaa sheegay inay shaki ka qabaan in wasiirka ay dowladdu dishay isla markaana wararka sheegay inuu baxsaday aan waxba ka jirin. nabadoonka oo la hadlayay idaacadda BBC da ayaa waxa uu sheegay in xiriiro badan oo la sameeya meelo kala duwan balse ay weli meel lagu sheegin isla markaana ay aaminsan yihiin in la dilay ama uu meel qarsoodi ah ku jiro wasiirka. annaka tuhun weyn ayaan qabnaa, meelo badan ayaan la xiriirnay sida deegaano badan oo ka tirsan Jubbaland welina meel laguma sheego. dowladda waxaan ka rabnaa inay soo cadeyso ayuu yiri nabadoonka. hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya weli si rasmi ah uma faahfaahin sida uu ku baxsaday wasiirka amniga Jubbaland, halka maamulka Jubbaland ay sheegeen in nolol iyo geeri intaba ay ku hayeen wasiirka. waxayna tani timaanaysaa kadib markii taliye ku-xigeenka booliiska Soomaaliyeed Janaraal Zakiya Xuseen ay barteeda Twitter-ka ku soo qortay in wasiir Janan uu ka baxsaday halkii ku xirnaa, iyadoo sheegtay in looga baahan yahay dhammaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo arka wasiirka inuu si degdeg ah ula soo xiriiro laamaha amniga ama uu waco 911, iyadoo sheegtay in sidoo kale wasiirka looga baahan yahay in uu dib ugu soo noqdo halkii uu ku xirnaa. laamaha kala duwan ee dowladda amniga qaybta amniga ayaa ilaa hadda wax war oo cad ah ka soo saarin baxsashada la sheegay inuu baxsaday wasiir Janan, taasi oo ilaa hadda aanu kala cadeyn. dhanka kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe isagana oo xalay ka hadlayay munaasabad soo dhaweyn oo magaalada Nairobi loogu sameeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay meel ku sheegto wasiir Janan. Madoobe ayaa waxa uu isagoo ku sugan magaaladaasi Nairobi waxa uu sidoo kale ka hadlay arrinta ku aadan in wasiirka ilaa iyo hadda aan nolol iyo geeriba lagu haynin. waxa uu yiri waxa uu jawaab cad sheegay inay ka sugayaan dowladda dhexe arrinta Cabdirashiid Janan oo aysan ku qancin doonin waxa uu baxsaday sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa madaxda dowladda ku sheegay kuwa dayacay amniga guud ee dalka iyo dadka sida awgeedna qadiyadda Janan ayuu sheegay inaysan dhinaca booliiska Soomaaliyeed warka u dhigeen ka ogolaan doonin. waxa uu yiri tani waa isla xisaabtan mid ay ka dambeyn doonto mana aan aqbalayno warka ka soo baxay booliiska Soomaaliyeed. waxa uuna sheegay in ay u baahan yihiin in si degdeg ah looga soo jawaabo hadalkooda ku aadan meesha uu ku dambeeyay wasiir Janan. warar kala duwan ayaana labadii maalmood ugu dambeysay ka soo bixisay baxsashada wasiir Janan, taasi oo ilaa hadda aan lagu haynin wax nolol iyo geeri intaba ah. waxa ayna laamaha amniga ilaa hadda aysan ka hadlin arrintaas, iyagoo uun kaliya ku ekaaday in wasiirku uu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa. waxaana ilaa hadda la laayahay wax war oo cad oo arrintaasi ku aadan. sidoo kale lama hayo ilaa hadda wax war oo ka baxsan arrinta wasiir Janan ee la sheegayo baxsashadiisa.
dhan kalena Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa ku tilmaamtay qorshaha nabadda bariga dhexe ee uu soo bandhigay madaxweyne Trump mid dhac ah oo aan ahayn qorshe nabadeed. Ilhaan ayaana sheegtay in qorshaha nabadeed ee Trump aan loo danayn isla markaasna ay ahayd in dhinac kasta laga qaybgeliyo qorshaha nabadda inta lagu sameyn lahaa soo jeedin xilka qaadis ah oo la dacweyn lahaa labadan hogaamiye ee lagu dhegan yahay inay gaaraan qorshe nabadeed. waa arrin ceeb iyo khiyaano ayay tiri Ilhaan Cumar oo qoraal soo dhigtay barteeda Twitter-ka, waxayna arrintaasi kusoo beegmaysaa xilli Trump uu aqalka cad ku qaabilay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, halkaas oo uu ka sheegay in qorshihiisa noqon karo fursadii ugu dambeysay ee Falastiiniyiintu ay helaan. Ilhaan Cumar ayaana sheegtay in arrintan ay tahay mid aan la aqbali doonin, isla markaasna looga baahan yahay senatarada dalkaasi Mareykanka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay arrintaasi uga hadlaan. dhanka kalena war sida aan xogta ku helayno, shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala gudaha dalka ayaa waxa ay sheegeen in la joojiyay duulimaadihii tooska ahaa ee magaalada Muqdisho ee loogu tegayay gobolka Gedo. ilo xogaal ayaana sheegaya in rakaabkii maanta ku qornaa diyaaradahaasi laga celiyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale jira warar ah in diyaaradaha lagu amray inaysan maanta aadin dhowr magaalo ka tirsan Gedo, inkastoo aysan caddeen cidda uu sida rasmiga amarkan uga soo baxay. lama hubo arrintani inay wax xiriir la leedahay baxsashadii ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay shalay xabsiga ka baxsaday wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan muddo dhowr bilood oo u xirnaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhanka kalena war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa dowladda federaalka looga codsaday inay meel ku sheegto halkii uu Janan iyo cirib dhigay wasiir Janan. dowladda Soomaaliyana waxay horey u sheegtay in Cabdirashiid Janan loo haysto dambiyo culus oo uu galay. laamaha amniga ayaana ilaa hadda arrintaasi wax waraa ka soo saarin. arrintan ku aadan in la hakiyo duulimaadida gobolka Gedo ay ku tagayaan diyaaradaha ka baxa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli xasaasi ah, taasi oo ah in wasiirka Jubbaland laga yaabo in uu raaco mid ka mid ah diyaaradahaasi qaab dhuumaaleysi ah ugana baxo garoonka magaalada Muqdisho, maadaama sida la sheegay adag tahay in qaab dhul ah uga baxo magaalada Muqdisho una gaaro deegaanada Jubbaland, walow la sheegay inay u fududahay qaabka dhanka badda ah oo uu dooni ka raaci karo gudaha magaaladaasi Muqdisho isla markaasna uu ku tagi karo magaalada Kismaayo. walow ilaa hadda arrintaasi aysan caddayn, isla markaasna wax wara oo cad oo ku aadan baxsashada wasiirka aan la haynin. laamaha amniga ayaana ilaa hadda warar kala duwan iyo weliba xiriiro aanu la sameynay ay ka mid tahay taliye ku-xigeenka dhanka booliiska Soomaaliya Jenaraal Zakiya Xuseen ay ka gaabsatay arrintaas, iyadoo aysan wax wara la wadaagin Garqaad Media. waxa ay kaliya ku gaabsatay inay wadaan baaritaano, isla markaasna wixii war ay ka soo baxa ay gadaal ka soo sheegi doonaan, isla markaasna ay la wadaagi doonaan warbaahinta. ugu dambeyn magaalada Muqdisho ayaa waxaa si weyn looga maqlayaa xilli salaada subaxa joogta qaraxyo saaka subaxdii hore, kaas oo dadka ku nool magaalada Muqdisho ay si weyn u dareemeen cabsi ka abuurtay. wararka la helay ayaa waxay sheegayaan in qaraxyada lagu xiray qaar ka mid ah kaamirooyinka hay'adaha amniga Soomaaliya ku xiran wadooyinka Muqdisho, gaar ahaan wadada Makal Mukarram. xilliga ay dhacayeen joogta qaraxyada ayaa waxaa markii hore dadka ay u maleynayeen in hoobiyaal ay kusoo dhacayaan magaalada Muqdisho, ayeeshee markii uu waagi baryay ayaa la ogaaday in la qarxiyay qaar ka mid ah kaamirooyinka lagu xiray meelo ka mid ah wadada Makal Mukarram. dadka saaka tegay qaybo ka mid ah oo wadada Makal Mukarram ayaa waxa ay sheegeen in dhowr kaamirooyin la qarxiyay, kuwaas oo gebi ahaanba burburay. goobaha wadooyinka ee lagu xiray kaamirooyinka ayaa waxaa inta badan bar kontaroolo ah gaadiidka lagu baaro ku leh ciidamada booliiska, ayeeshee aan la ogeyn sababta keentay in kaamirooyinka qaraxyo lagu xiro lana qarxiyo. laamaha ammaanka Soomaaliya weli wax wara kama soo saarin kaamirooyinka la qarxiyay, waxaana saaka si caadi ah u shaqeynaya gaadiidkii weliba goobaha ganacsiga ee wadada Makal Mukarram oo ay ku xirnaayeen kaamirooyinkii la qarxiyay sida la sheegay. arrintan ayaana waxaa la sheegayaa inay ka dambeysay kadib markii kaamirooyinkani ay u fududeysay laamaha amniga sidii ay kusoo qaban lahaayeen dadka looga shakisan yahay inay maleegayaan waxyaabo lid ku ah amniga magaalada ama sidoo kale ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab. taasi ayaana waxyaabaha ugu waaweyn ee ah in kaamirooyinkani la qarxiyay ka dambeysay sida la sheegay.
intaas ayaanu kusoo gabagabaynayna qaybtii labaad daawadayaal. Fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha nagu cusub, subscribe halkani saar si aad uga mid noqoto saaxiibada wararka iyo weliba barnaamijyada maalin kasta aanu falanqeyno si toosa. Tan iyo kurti dambe, nabadgelyo.